heedhe sahray heedhe gabadhuhu waaninaya markaa ilbaxnimadu saas maaha sunnayaha qorqoro maaha dhabanada sibaaq maaha hadba suuf karkara maaha shaar iyo surwaal maaha wax siloon ku daya maaha sarsarada wareeg maaha saxan reer galbeed maaha Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa isugu yimid kulan tacsi iyo duco oo loo dhigay Allah u naxariistay abwaankii Soomaaliyeed ee Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. Kulankaasi oo si gaar ah looga sheekeeyay taariikhda abwaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo ay ka mid ahaayeen dadkii ka soo qayb galay halyeegii Soomaaliyeed ee orodada caalamiga ah ku guuleystay Cabdi Bila Cabdi iyo fanaaniinta gobolada qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen fanaanad Cadar Kaahin iyo fanaanad Hibanuura. Ka marka ugu horeysa waxaan u tacsiyadeynayaa qoyskii eheladii qaraabadii iyo intii afkaartiisa iyo fikirkiisa iyo wuxuu u taagnaa jeclayd iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kastoo ay joogto. Allah u naxariisto abwaankeenii weynaa macallinkeenii weynaa macallinku badweyn buu ahaa anigu dadka dhageysta kaliya maan ahayn dadka ku dhaqmaan ahaa ereyadiisa marka wax yar baan soo ururiyay halkan waxyaaluhu sameeyay baan in yar idin dul marayaa wuxuu sameeyay waa la ii adimay xadii sidan ku eegayee saxarlaay ha fududaan waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxarlaay ha fududaan hooyo la'aanta Axmed Gureyma uu dhiman ma gablamin darwiishkii geeyadu ma daalana heedhe sahray heedhe gabadhuhu waaninaya markaa ilbaxnimadu saas maaha sunnayaha qorqoro maaha dhabanada sibaaq maaha hadba suuf karkara maaha shaar iyo surwaal maaha wax siloon ku daya maaha sarsarada wareeg maaha saxan reer galbeed maaha salka dhiga guryaha seexda ku saliya rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayaa kamid ahayd marka anigu in yar baan dul marayaa dabeecadihiisii baan in yar ka soo qaatay aqoonyahan buu ahaa abwaan buu wuxuu ahaa islaam runa buu ahaa asluub badan buu lahaa iimaan rasmi uu lahaa aragti dheer buu lahaa ujeedo fog buu lahaa ayaha noloshu yaqiin iftiinka geesku ahaa geeska Afrika samiri iman Allah inaga siiyo abwaankeeni qaaliga ahaa anigu taariikhdiisa waa laga sheekeeyay kaliya waan ducaynayaa intii ka horeysay waan qalbi jilicsanay anigu aadna waan u yaqiinay marka waxaan leeyahay adduunyadu waa ayaamo tirsan oo ma ilowsan inay idlaanayso axadba ifkan ku ooli maayo ibliisku intaanu eedagelina aaliga nacab eebbuu naga yeel afkooda ka dhowra erayo xumo ammaan gelinaya aadmiga salaada ooga intaana jashu imanne iimaan adag eebbuu naga yeel aakhiradana ehelu khayriinta imtixaanka aflaxda allow naga yeel. ugu dambeyntii abwaan Hadraawi ayaa ka mid ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwoodii loogu jeclaa ahaana qayb ka mid ah abwaankii ugu hal abuurka wanaagsanaa abid ee soo mara geeyiga Soomaaliyeed. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.